kani waa makhluuq qadiimi ah oo yaab leh. Waa yar yahay oo xitaa wax yar wuu qurux badan yahay. Laakiin marka uu biyaha taabto, wax walba way isbedelaan. Si waali ah ayuu u noolaanayaa, wuxuuna ku korayaa xawaare aan caadi ahayn. Teendooyin asaan ah oo aan la tirin karin ayaa jirkiisa kasoo baxaya. Qaabkiisii oo dhan wuxuu isu bedelayaa mid si buuxda u hufan. Qof dhulka jooga weligiis ma arag wax sidan oo kale ah. Mudane Furlong wuxuu u malaynayaa inuu yahay nooc dulin ah. Wuxuu doonayaa inuu qabto oo si dhow u baaro. Laakiin qaybta yaabka leh waa tan. Shaygani wuxuu awood u leeyahay inuu isu kala qaybiyo laba isagoo isnuqulaynaya. Intii ay dadku weli isku dayayaan inay fahmaan arrintaas, wuxuu muujinayaa wax ka sii xun. Hoosta jirkiisa jilicsan waxa ku qarsoon ilko aad u af badan. Wuu soo boodaa. Wuxuu argagax geliyaa qolkii oo dhan. Mudane Furlong dhidid qabow ayaa kasoo baxaya, balse wuxuu ardayda u sheegayaa in wax walba hagaagsan yihiin. Waxba hagaagsan ma aha sababtoo ah makhluuqani ma aha oo keliya mid gardaro badan, waa mid si daran u faafa. Mudane Furlong wuxuu qorsheynayaa inuu u diro macadka cilmi baarista biolojiga, laakiin makhluuqa hooyada ah ayaa durba si dhumasho ah ugu soo galay dugsiga. haddii aad nagu cusub tahay ha moogaanin muuqaalada xiisaha leh, sabskrayb saar, likadeh, sharana la wadaag asxaabtaada. bartilmaameedkiisii ugu horreeyey waa Oar Willis. Laga bilaabo daqiiqadaas, Oar Willis wuxuu bilaabaa inuu si yaab leh u dhaqmo. Wuxuu cabbaa biyo aan kala joogsi lahayn laakiin weligiis ma haraado beelo. Ugu dambayn wuxuu istaagaa hoosta rusheeya biyood si uu isu waraabiyo. Arday la yidhaahdo Casey Connor ayaa si kadis ah u arka waxaas oo dhan. Habeenkaas xaaladdu aad bay uga sii dartaa. Maamulaha dugsiga Principal Drake waxay keligeed ugu noqotaa xafiiskeeda si ay furayaasheeda u soo qaadato. Willis ayaa gadaasheeda kasoo muuqda isagoo aan meelna ka iman. Wuxuu keliya rabaa inuu amaahdo qalin, laakiin iyadu waxay moodaysaa inuu dhibayo. Iyadoo xanaaqsan ayay qalinkii u tuurtaa. Wuxuu si toos ah uga dhex maraa calacalkeeda. Wax walba si degdeg ah ayay u dhacaan. Drake xanuun ayay ku qaylisaa, furayaasheeda ayay wejiga kaga dhufataa kadibna way carartaa. Willis ayaa eryanaya. Si dib yar ayay albaabka uga gudubtaa, way xirtaa oo gudaha ayay ku qufulaysaa. Waxay moodaysaa inay badbaaday, laakiin macallinkii bannaanka taagnaa ayaa u soo jeesta. Indho qabow maqas kor loo qaaday. Drake meelna ma aadayso. Maalintii xigtay dugsigu sidii caadiga ahayd ayuu u shaqaynayaa. Qofna ma oga wixii dhacay habeenkii hore. Qofna marka laga reebo Casey. Oar Willis wuxuu ahaan jiray nin wanaagsan. Hadda xanaaqiisu gebi ahaanba wuu isbedelay. Wuxuu Casey ugu qayliyaa sabab la'aan. Waxbaa qaldan. Kadib Casey wuxuu arkayaa macalimad P6 ah oo galaysa musqusha wiilasha. Markaas ayuu ogaadaa in wax si dhab ah u khaldan yihiin. Wuxuu u tagaa Dalila Prophet, tifaftiraha wargeyska dugsiga. Waa gabar caqli badan, hami leh oo aan dib uga laaban. Labadooduba si dhuumasho ah ayay xafiiska u galaan si ay wax u baaraan. Meel walba ayay baadhaan, laakiin waxba ma helaan. Kadib tallaabooyin bannaanka ah. Si degdeg ah ayay armaajo ugu dhuntaan. Oar Willis iyo macallin kale ayaa soo gala. Waxa ugu horreeya ee ay sameeyaan waa inay biyo cabaan. Kadibna biyaha ayay wejigooda si toos ah ugu shubaan. Casey iyo Dalila waxay ka dhagaysanayaan dilaacyada. Macallimiintu waxay ka hadlayaan macalimadii P6ka. Way duqowday hadda. Dulinku kuma noolaan karo gudaha jirkeeda. Kadib albaabkii ayaa mar kale furmaya. Nurse Harper ayaa soo gasha. Macallinka ayaa si aamusan albaabka gadaasheeda uga xiraya. Kadib Casey iyo Dalila waxay arkaan wax aysan weligood iloobi doonin. Oar Willis wuxuu madaxa ka qabtaa Nurse Harper, wuxuuna si xoog leh ugu dhuftaa sariirta. Wejigiisu wuxuu si degdeg ah isu bedelayaa isagoo isu rogaya wax bahalnimo ah. Wuxuu carabkiisa ku dilaa Nurse Harper. Dalila xabsi darteed ayay dhulka ugu dhacdaa. Si kama ah ayay u garaacdaa mayd qarsoon. Waa macalimadii P6ka. Oar Willis wuxuu maqlaa codka wuxuuna u soo socdaa armaajada. Ka hor inta uusan furin, Casey wuxuu ul ku dhuftaa wuxuuna hawada ku tuuraa. Way cararaan. Markay baxayaan, waxay la kulmaan Principal Drake, tii ahayd inay dhimatay. Waxay isku dayaan inay wax walba u sharxaan. Iyadu hal eray ma rumaysna. Kadib waxay dib u eegaan oo arkaan Nurse Harper oo si caadi ah u socota sidii waxba aysan dhicin. Ma sharxi karaan. Way cararaan. Casey wuu kufaa. Dalila si lama filaan ah ayay u baabadaa, laakiin macallimiintu ma eryanayaan. Wax yar kadib Casey wuxuu waalidkiis iyo askari booliis ah dib ugu soo celiyaa si ay xafiiska u baaraan. Principal Drake si buuxda ayay ula shaqaynaysaa. Waxay furaan armaajada. Maydkii waa la waayay, waxaana lagu bedelay aruusad. Wax aan caadi ahayn lama helin. Principal Drake waxay codsataa inay si gaar ah ula hadasho askariga. Markay dibadda u soo baxaan, indhaha askariga waxay yeesheen isla eegidii qabood ahayd. Isagana waa la qaaday. Kadib markii askarigu tago, Principal Drake waxay isku daydaa inay Casey hooyadii keligeed hesho. Casey wuu argagaxaa, wuxuuna sameeyaa marmarsiinyo ku saabsan balan dhakhtar si uu hooyadii meesha uga saaro. Dhanka kale, makhluuqa hooyada ah ee isticmaalaya Oar Willis wuxuu bilaabaa qabsasho buuxda. Macallimiintu mid ayay u dhacayaan. Waxay isugu yimaadaan oo biyo u cabaan sidii inay haraad u dhimanayaan. Baaldi kadib baaldi kadib baaldi. Kadib macallimiinta cudurka qaaday ayaa noqda isha cudurka. Waxay ardayda saf geliyaan oo mid ugu diraan xafiiska si loogu sameeyo waxa loogu yeero baaritaan caafimaad. Ardayda soo baxaya waa xanaaq badan yihiin, wejiyadoodu madhan yihiin, waxayna isla markiiba saf ugu galaan inay biyo cabaan. Casey wuxuu arkaa dhammaan calaamadaha isbiirsanaya, wuxuuna si lama filaan ah u xusuustaa makhluuqa biyaha ku noolaanayay. wuxuu dhowr arday geeyaa shaybaarka. Dixirigii ku jiray haanta kalluunka waa la waayay. Casey hadda si buuxda ayuu u rumaysan yahay. Shisheeyaal ayaa qabsaday dugsiga. Macallin walba waa la haystaa. Dhanka kale, Zeke Taylor wuxuu indhaha ku hayaa Mary Beth, ardayda cusub ee leh dhoola caddayn macaan. Wuxuu hadal macaan ku geeyaa shaybaarka chemistryga daqiiqada gudahood. Waxyaabo xiiso leh ayaa bilaabanaya markay maqlaan Casey oo qolka xiga ka hadlaya. Zeke wuxuu u dhaqaaqaa isagoo diyaar u ah inuu ku jeesjeeso. Kadib Furlong ayaa soo muuqda oo weydiiya sababta aysan fasalka ugu jirin. Zeke si caadi ah ayuu u sheegaa wax walba oo Casey ka shakiyay ee ku saabsan macallimiinta. Kadibna dhammaantood waxay ogaadaan in Casey saxnaa. Furlong wuxuu qoorta ka qabtaa Casey wuxuuna ku tuuraa qolka oo dhan. Zeke wuxuu soo saaraa mindi yar wuxuuna ka gooyaa 5 farood oo macallinka ah, laakiin faruhu ma dhintaan. Waxay dhulka ugu
ugu gurguuranayaan sidii cayayaan iyagoo si toos ah ugu socda gabdhaha. Mar Furlong wuxuu Zeke ku dhajiyaa miiska. Teendhooyin casaan ah ayaa ka soo baxaya dhaawaca iyagoo ku sii jeeda Zeke. Ilbiriqsigii ugu dambeeyay Zeke wuxuu qabtaa dawo kaadida kordhisa wuxuuna si toos ah ugu tuuraa isha Mar Furlong. Mar Furlong gariir ayuu ku dhacaa wuuna dumaa. Waxay ahayd shil laakiin hadda waxay heleen wax muhiim ah. Daawooyinka kaadida kordhiya waa daciifnimada makhluuqa. Waxay qaataan muunad ku jirta dhalo kadibna way baxaan. Markay baxaan dugsigu gebi ahaanba wuu aamusan yahay. Ardaydu si quman ayay fasalada ugu fadhiyaan, gacmaha ayay taagayaan, si degan ayay u dhegaysanayaan. Wax cod ah kuma jiro marinada. Cudurku wuxuu ku faafay dugsiga oo dhan. Boqolaal arday ah ayaa laga qaaday shakhsiyadoodii iyo dareenkoodii caadiga ahaa. Ma joogi karaan halkan. Way baxsadaan laakiin waxay jidka kula kulmaan askar booliis ah oo cudurka qaaday. Way soo noqdaan oo waxay aadaan shaybaarka qarsoon ee Zeke. Zeke wuxuu xasuusinayaa qof walba in ciyaaryahan noqoshadu aysan macnaheedu ahayn doqonnimo. Wuxuu qayb ka gooyaa dulinkii ay keeneen wuxuuna ku ridaa qafis uu ku jiro jiir cad. Hal dhibic oo biyo ah kadib wax walba way dhammaadaan. Dulinku wuxuu si degdeg ah ugu dhex galaa jiirka isagoo sameeya xiriir nooleed oo yaab leh. Zeke wuxuu ceejiyaa jiirka kadibna kala googooyaa isagoo ka saaraya dulinkii. Waxa uu helo waatan. Dulinka ku bislaada gudaha martida ma aha noole madax bannaan. Waa qayb ka mid ah jirka hooyada. Marka qof la qaado, martida si buuxda ayuu gacanta ugu hayaa. Iyadoo la adeegsanayo caqliga filimada sci-figa, haddii la dilo jirka hooyada, dulin kasta wuu dhimanayaa, martidii la qaadayna caadi ayay ku soo noqon doonaan. Warka wanaagsan waa inay xaqiijiyeen in daawooyinka kaadida kordhiya shaqaynayaan. Qadar yar ayaa sababaya in dulinku qalalo oo isla markiiba dhinto. Daliila waxay leedahay waa inay baxsadaan inta ay weli fursad haystaan. Asay wuxuu leeyahay maya, waa inay hadda helaan jirka hooyada oo wax walba soo afjaraan. Kadib Stan Rosado wuxuu soo jeedinayaa su'aal macquul ah. Sidee bay ku ogaanayaan inaan midkood hore loo qaadin? Isla markiiba kooxdu way isku jeesataa ka hor intaysan raadinta bilaabin. Zeke wuxuu leeyahay fikrad. Wuxuu qof walba siiyaa daawada kaadida kordhisa wuxuuna ku yiraahdaa ha istijaabiyaan. Caddeeya inaad weli bini'aadan tihiin. Tijaabadu waxay muujisaa wax aan cidina filayn. Daliila mar hore ayaa la qabsaday. Waxay Stan dhulka ku tuurtaa kadibna way carartaa. Casir qorigiisa ayuu kor u qaadaa laakiin ma toogan karo. Wuxuu dareen u qabaa iyada. Daliila taas ayay ka faa'iidaysataa. Waxay burburisaa wixii shaybaarka ka haray kadibna way baxsataa. Iyagoo sahaydii ka dhamaatay ayay dabagalaan. Waxay dib ugu noqonayaan dugsiga si ay u helaan jirka hooyada oo ay u dhameeyaan. Dugsigu waa buuxa. Waa ciyaartii kubadda cagta ee sanadlaha ahayd. Kalabad magaalada ayaana joogta. Haddii aysan si degdeg ah u helin jirka hooyada, qof kasta oo goobta jooga waa la qaadi doonaa. Waxay diiradda saaraan Principal Drake oo dhex maraysa dadka. Iyadu waa qofka ugu badan ee looga shakisan yahay jirka hooyada. Iyaduna way aragtaa. Waxay dabin u dhigaan oo ku soo jiitaan hoolka jimicsiga. Dhulka ayay ku dhigaan. Ma wada shaqaynayso, hadal keliya ayay wadaa. Zeke ayaa toogta. Isla markiiba way istaagtaa. Dulino boqolaal ah ayaa jirkeeda ka soo daadanaya. Maribeth waxay qabataa daawadii ugu dambeysay ee kaadida kordhisa. Waxayna wejiga kaga shubtaa ka hor inta Zeke uusan joojin. Kadib qaylo xanuun badan, Principal Drake way aamustaa. Si loo hubiyo inay runtii ahayd jirka hooyada, Stan dibadda ayuu u baxaa si uu xaaladda u eego. Waxaa haray laba dawo oo keliya. Mid ayuu qaataa wuxuuna u baxaa roobka daaya. Markuu garoonka gaaro, wuxuu arkaa Owen Willis. Jirkiisu wuxuu isu bedelay wax aan la aqoonsan karin. Wuxuu taagan yahay roobka dhexdiisa isagoo nuugaya, abaya, way qaldeen. Principal Drake ma ahayn jirka hooyada. Qof walba oo jimicsiga ku jira waa kacsan yahay. Kadib Stan ayaa albaabka ka soo muuqda. Wuxuu leeyahay jirka hooyada weli waa nool yahay. Albaabka fura, laakiin Casay iyo kuwa kale waa aqli badan yihiin. Waxayna marka hore daawadii ugu dambeysay ka geliyaan daloolka. Waa inuu caddeeyaa inuu nadiif yahay. Dhulka ayuu ku shubaa. Isagana waa la qabsaday. Daawooyinkii way dhammaadeen. Way xaniban yihiin. Zeke wuxuu si lama filaan ah u xusuustaa inay kuwa kale gaariga ku jiraan. Isaga iyo Casay waxay go'aansadaan inay soo qaadaan. Dibadda ayay u baxaan laakiin waxay isla markiiba la kulmaan koox arday ah oo cudurka qaaday. Waxay isku qariyaan gaari hoostiis. Gaariga Zeke dhowr tallaabo oo keliya ayuu u jiraa. Casay wuu istaagaa wuuna ordaa isagoo dareenkooda leexinaya. Bas ayuu galaa. Daliilah ayaa soo muuqata. Waxay u sheegtaa inay rabto inuu sida iyada oo kale noqdo si ay weligood u wada joogaan. Casay ma rumaysna. Wuxuu ka baxaa daaqada kore, saqafka ayuu ku boodaa kadibna wuxuu u cararaa dhinaca hoolka isagoo kuwa cudurka qaba soo jiidanaya. Meel u dhow madax haweeney goon ayaa dhulka ku rugmanaya. Qoorta hoosteeda lugo badan oo dhuuban ayaa si madax bannaan u dhaqaaqaya. Zeke qorigiisa ayuu kor u qaadaa. Wuxuu arkaa shayga oo raadinaya jirkiisii. Wuu barafoobaa kadibna halkaas ayuu ka baxaa. Wuxuu u ordaa gaarigiisa wuxuuna furaa sanduuqa dambe, laakiin mar hore ayaa la arkay. Hey, Sweetie Bee, mid ka mid ah macallimiintiisii oo si buuxda loo qabsaday ayaa halkaas taagan. Waxay leedahay waxay rabtaa inay cunto. Zeke wuxuu isku qasbaa inuu deganaado. Dhinaceeda ayuu ka leexdaa kadibna gaariga ayuu ku boodaa. Wuxuu shitaa, laakiin iyadu waxay jebisaa daaqada oo gudaha ayay u soo gashaa. Ma labalabeeyo. Suunka ayuu xirtaa, cagta ayuu gaaska saaraa. Wuxuu si xawaare sare leh ugu dhuftaa gaari kale. Iyadu hawada ayay ku dhacdaa. Kadib gaariga ayaa qarxa. Zeke si dib leh ayuu uga soo baxaa burburka. Si muujiso ah weli wuxuu gacanta ku hayaa dhowr dawo oo kaadida kordhiya. Kadib madax ayaa hawada kaga duusha. Wuu boodayaa, qorigiisa ayuu soo saaraa wuxuuna shaqada dhameeyaa. Dib ugu noqoshada hoolka, Maribeth si lama filaan ah ayay u weerartaa Stokely Mitchell. Waxaa soo baxaysa in ardayda cusub ay tahay madaxa dhabta ah. Waxay iska siibtaa maqaarkeedii bini'aadanka waxayna isu beddeshaa wax aad u fool xun. Casay iyo Stokely naftooda ayay la cararaan. Bahalku wuxuu daba socdaa ilaa barkada dabaasha halkaas oo uu si toos ah ugu boodo biyaha. Aad buu ugu dheereeyaa biyaha hoostooda. Teendhooyin waaweyn ayaa biyaha ka soo baxaya waxayna qabtaan Stokely. Hoos ayay u jiidaan. Bahalku afkiisa ayuu kala qaadaa waana ilko keliya. Kadib waxbaa isbedela. Stokely caadi ayay ku soo noqotaa. Waxay u dagaalantaa dusha biyaha. Way cararaan. Bahalku wuxuu dib ugu noqdaa barkada. Wuxuu isu beddelaa Maribeth kadibna banaanka ayuu
ayuu u soo baxaa. Seke wuxuu ku soo noqdaa hoolka isagoo wata dawooyinka isagoo aan ogeyn waxa dhacay. Wuxuu eegaa labada gabdhood mana garanayo mida la aamino. Labaduba midba midda kale ayay ku eedeynaysaa. Ugu dambeyn Maribeth waxay joojisaa jilitaanka. Waxay qirataa inay si qarsoodi ah u daadinaysay dawooyinka markii cidina fiirinayn. Dhammaantood way khiyaanaysay. Seke wuxuu isku dayaa inuu daawo ku tuuro. Stokely ayaa hor istaagta. Iyadana waa la qaaday. Casay gadaal ayuu ka qabtaa Stokely wuxuuna ku xiraa qafis. Seke wuxuu Casay siiyaa dawooyinka. Way kala tagaan si ay u helaan jirka hooyada. Hooska bahal weyn ayaa mugdiga ku dhaqaaqaya. Ka hor inta Casay uusan falcelin, Seke hawada ayaa lagu tuuraa wuxuuna si xoog leh ugu dhacaa dhulka. Bahalku wuxuu ku soo dhawaanayaa Casay. Dib ayuu u gurtaa. Stokely waxay timihiisa ka qabataa iyada oo qafiska ka dhex jirta. Wuxuu ilbiriqsiyo u jiraa in la qaado. Wuxuu iska soo gooyaa kadibna wuu cararaa. Bahalku si xun ayuu u daba ordaa. Teendooyin ayuu hawada ku garaacayaa isagoo burburinaya wax kasta oo jidkiisa yaal. Casay wax yar ayuu kaga horeeyaa. Wuxuu gaarayaa garoonka kubadda koleyga. Bahalku gudaha ayuu uga daba yimaadaa. Casay wuu istaagaa. Wuxuu shidaa kuraasta korontada ku laabma kadibna wuxuu isku dhuuntaa meel cidhiidhi ah oo kuraasta hoostooda ah. Bahalku wuu soo galayaa. Markuu dabinka fahmo waa goor dambe. Matooradii ayaa shaqaynaya. Kuraastii way isku soo ururayaan. Casay ilbiriqsigii ugu dambeeyay ayuu ka baxsadaa. Bahalku aad buu u weyn yahay, aad buuna u gaabis yahay. Wuu ku dhegmaa. Mashiinku hoos ayuu u cadaadiyaa. Bahalku qaylo dheer ayuu sii daayaa wuxuuna boqolaal dulin si toos ah ugu diraa jirka Casay. Casay wuxuu moodayaa inay dhammaatay, laakiin dawooyinkii ayaa ugu dambeyn shaqeeya. Jirka hooyada si degdeg ah ayuu u qalalaa. Wuu aamusa. Dulinadii ku dhex gurguuranayay jirka Casay mid mid ayay uga soo dhacayaan. Jirka hooyada wuu isku ururaa wuuna dhintaa. Qof kasta oo cudurka qaaday oo dugsiga joogay isla markiiba caadi ayuu ku soo noqdaa. Casay Connor wuxuu noqdaa geesigii badbaadiyey dugsiga.